dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa haramcad u daabushay deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya xilli uu sii xoogeysanayay khilaafka culus ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhabo. sida ay warbaahinta ogaatay ciidamadan oo boqolaal ah ayaa saaka diyaarad loo qaaday magaalada Muqdisho waxaana la geeyay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, sidoo kalena caasimada rasmiga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, halkaas oo ay ka bilaabi doonaan dhaqdhaqaaqyo xoogan. Ilwareedyo la xiriirna ayaa sheegay ciidamadan oo ah qaybtii ugu horeysay ayaa loogu talagalay inay xoojiyaan amniga guud ee magaaladaasi. sidoo kale qorshaha Villa Soomaaliya ayaa ah inay adkeyso gacan ku haynta magaalada Baraawe ilaa degmada Burhakaba ee gobolka Bay, halkaas oo ay ku sugan yihiin mucaaradka koonfur galbeed Soomaaliya oo horey dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka bilaabeen. wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Maxamed Maxamuud xalay lagu amray inuu diyaariyo ciidamo badan si loo geeyo deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana loo xaqiijiyo amniga deegaanadaasi. tilaabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen uu ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay ka dambeyso dagaaladii ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Bay, isagoona sidoo kale hoosta ka xariiqay inay isku ajanda ay noqdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay taasi cadeen u tahay hub uu tilmaamay in la soo dhaxmarsiiyay qawaariijta kadibna la geeyay degmada Burhakaba ee gobolka Bay oo ay joogaan ciidamada mucaaradka. xiisada siyaasadeed ee ka taagan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa u muuqata mid iska sii daraysa, iyadoona meelaha qaar laga dareemayo abaabul ciidan iyo dhaqdhaqaaqyo ay muujinayaan kooxaha mucaaradka. si kastaba lama oga sida uu xaalku noqon doono iyo halka ay ku dambeyn doonto xiisada labada dhinac oo ku soo aaday xilli xasaasi ah oo horey u taagnaayeen khilaafyo kale oo ka dhashay doorashooyinka heer federaal iyo wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka dalka ee dhawaan ay ansixiyeen baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya.